فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور. waxaan maanta soo booqday waa qoys Suuriyaan ay soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaana qoyskan Suuriyaanka ay ka soo barakaceen wadankooda ee ka socda dagaal suuqeeya safar dheer ay soo galeen ugu dambeyn waxay soo gaareen magaalada Jowhar ay soo gaareen iyaduna walaalaha muxsiniinta ay ku codsadeen in ay soo garab istaagaan muuqaalkooda hore ayaan u baahinay mid kamid ah gabar muxsanad ah ee ku nool wadanka Switzerland ayaa ka soo jawaabtay muuqaalkan aan baahinay waa Mustafa iyo waliba xaaskiisa muuqaal aan u baahinay gabar muxsanada ku nool wadanka Switzerland ayaa ka soo jawaabtay magaceedana waa Deeqa Maxamed Cali ayaa la yiraahdaa waa Deeqa Maxamed Cali lacag dhan waxay soo geersiisay waa lacag $100 ah sida arkaysaan waa $100 waan ku wareejinayaa waxaan farta ka saarayaa waa Mustafa جزاك الله خيرا. ما شاء الله بارك الله فيك. عند الدعاء. نعم الله يبارك فيك يا رب جزاك الله خيرا. أنا أخوكم من سوريا من بلاد الشام تهجرنا بسبب الأوضاع يا أخوان المسلمين ولا يعلم بالحال إلا الله ثم أخواننا المسلمين. أنا تصابت في الحرب يا أخوان المسلمين وأنا والدي استشهد في سوريا وأنا لدي زوجتي وزوجتي حامل ولا أنا أستطيع العمل ولا زوجتي. مصطفى wuxuu sheeganayaa inuu ka jiran yahay dhabarka ayuu sheeganayaa sida idin muuqda daabadayaal waa raajadii muujinaysa in dhabarka jug ka soo gaartay jugtan ayuu Mustafa ku sheegay inay ka soo gaartay dagaalka markuu ka bilowday wadankooda iyagu ay ku jireen yani qaxi ayuu wuxuu ku soo dumay ayuu ku sheegay Mustafa mid kamid ah guryo ee halkaas gabaad ay kaga dhigteen dagaalka ay ugu gambadaan waa madaaficida ee halkaas ka dhacay ما شاء الله والله ليال واد أركيسان راجدي أيابا واحد والب إذا كفيلم لمبر كاد أركيسان وكسو هجاجي وفراها تمني سجال إبرس ده سجاشن والله محسنين تحكوا صنايان إن السوق بيستاجان وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور. gabar muxsanada lagu magacaabo Farxiyo Xasan Aadan ayaa waxay qoyskan Suuriyaanta ay u soo dhiibtay lacag dhan waa $100 sida arkaysaan waa lacag $100 ah waa lacag $100 ah waxaan ku wareejinayaa aabaha qoyska ismu بديع علي رشيد بديع علي رشيد نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أخوان الكرام شعب الصومال نحن أتيناكم من بلاد الشام مهجرين لا نملك أي حاجة إلا نملك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتيناكم مهجرين يا عباد الله. هذه أسرتي أطفالي أنا عندي 4 أولاد ونطلب الصدقة جارية في سبيل الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم يا عباد الله. أتيناكم مهجرين سائرين والله لا يملك أي حاجة غير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله walaalkan wuxuu leeyahay waxaan haystaa waa 4 caruur gabdhaha ayaan haystaa sidaad u arkaysaan waa gabadhu qabay xaaskiisana xag muuqaalka aad ka arkaysaan waxayna u baahan yihiin cunto waxayna sidoo kale u baahan yihiin caano inay helaan mana awoodaan inay xitaa helaan hooy ku hoydaan yani ay seexdaan meesha hadday degan yihiin waa guri ijaar ah ma awoodaan lacagta ay ku degan yihiin sida la sheegay waa lacag $200 ah walaalaha muxsiniinta waxay ku codsanayaan inay soo garab istaagaan qoyskan Suuriyaanta ah lambarka idin muuqda waa furaha hal 1123 waa furaha hal 1123 وأقبلت العطايا